الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. marka hore ilaahay baa mahad leh isu keenay dhamaanteen inagoo nabad qabna oo u xafladaynayna ololihii xisbiga kulmiye maalintiisii labaad oo aan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb galo magaalada Burco ee gobolka Togdheer. marka xiga waxa Burco maanta way hadashay waxay xaqiijiyeen taageeradoodii aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay ilaahayna guusha hayna siiyo. Somaliland meel fiican bay maraysaa ilaahay haynoo sii wadee. dimuqraadiyaddii aynu bilownay laba xisbi oo mudakar ah oo ay sameeyeen saddexdii xisbi laba ka mid ah laba rug cadaab ay noo sameeyey. mid wuxuu ahaa Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ka labaadna wuxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. xisbiga kulmiye waa kii uu Axmed sameeyey ilaahayna wuxuu u qoray inuu ku guulaysto oo uu sii jiro oo uu noqdo xisbiga mar saddexaad tartamaya ee saaxadda ku jira. waxa iyaduna ilaahay mahadiya in madaxweyne Siiraayo uu sameeyo arrin ku cusub Afrika oo dhan oo uu yiraahdo aanu ma tartamaya musharax kale ayaad samaysanaysan. musharaxa uu inoo soo xulay waa mid isaga oo kale ah oo taariikhdiisii leh waa halgankii ah oo ah dabdhegesti oo dimuqraadiyaddii ah oo dibudhiskii dalka oo ilaa iyo maanta u soo taagan oo halka jooga waa Muuse Biixi Cabdi. maanta waxaa arkaysaan in saddex musharax ay sidii Maraykanka debate galeen oo ay ku doodayaan dood furan oo dadku su'aalo ku weydiinayaan. waa darajo aynu gaadhnay oo Somaliland gaadhay Allah inoo sii kordhiye. haddaba maanta kelmadda aan rabo reer Burco inaan la wadaagaa waxa weeye taariikhdii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo dhammaystay muddaxileedkiisii oo dalkan hogaaminayay 7 sano oo 40 sanadood halgan ugu jiray ummaddan Somaliland iyo Soomaaliyaba maanta wuxuu ku soo gabagabeeyay musharaxa uu inoo soo xulay. taariikhdiisu waxay sii jiraysaa haddii aan dooranno Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxan xisbiga kulmiye oo uu inoo soo xulay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. sawma dooranayno Muuse taariikhda odayga sawma sii xajinayno. waxaan ku dhiirinayaa oo mar kale ku celinayaa si taariikhda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo u sii jirto si uu xisbiga kulmiye u sii jiro si uu talada maanta ugu guulaysto waa in loo guntadaa sidii loo dooran lahaa xisbiga kulmiye. kelmad qura ayaan rabaa inaan saaxiibadii aan ka soo tegay ee waddani aan halkan ka idhaa. horta waddani waxaan kaga imi waxa weeye qorshe la'aan iyo qof nacayb. waddani waxa yaalo oo qorshe qaran ah maan arag. waxa yaalo qof nacayb qorshe qaran oo laga sheekaynayaa ma jiro. waxaan saaxiibaday leeyahay war shacabkii maanta wuxuu rabaa inuu doorto madaxweyne. waxaad ka hadashaan ha noqdo wixii aad dadkan la hor imanaysaane ah sidaad dalka u hoggaamin lahaydeen iyo waxa aad ka iibinaysaan. xisbiga kulmiye wuxuu ka iibinayaa hoggaan waaye araga hoggaan waxqabad ku xusuntan oo ku tilmaansan xisbigii kulmiye oo taariikhda Somaliland maanta ay qirayso inuu yahay xisbigii waxqabadka. haddaba idinka yaana idinka noqonin shakhsi nacayb yaana idinka noqonin yooyootan. khudbadihiinnu ha noqdaan khudbado hufan oo u badan inaad shacabka u sheegtaan hadal aan turxaan lahayn oo ka hufan qof nacayb. waa la badan yahay hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa. xisbiga kulmiye guul xisbiga kulmiye guul xisbiga kulmiye guul Muuse Biixi Cabdi guul Somaliland ha loo dhowr. السلام عليكم.